waxaan rabnaa inaan ka sheekayno taariikh yar oo aan dul marayno oo ah sayidka dagaalkii ingiriisku ku soo qaaday ee daraawiish lagu jebiyey iyo sidii loo soo qorsheeyey iyo nugaal iyo sanaag wixii ka dhacay iyo qaxii sayidka waa taariikh dheer oo buug badan laga diyaarin karo laakiin waxaan rabnaa inaan in xasuusa oo kooban aan ka samayno oo aan ka duubno waxaan rabnaa markaan arrintaa ka sheekaynayno daraawiishta iyo siday u jabtay inaan wax yar taabanno see daraawiishi xaalkee ku sugnayd markii dagaalka lagu soo qaaday mar hore waxaynu ka sheekaynay markii ingiriiska iyo sayidka iyo talyaanigu ilig ku galeen heshiiska in qoloba ujeeddo ka lahayd gaaladu si ay daraawiishta ugu helaaniin layn ay ku dhex galaaniin oo ku bahalkeeyaan inqilaabkii canjeel bay ka shaqeeyeen kabacdi waxay ku yeesheen inay daraawiishta dhex galaan oo wax ka sheegaan oo bahalkeeyaan waxa xusid mudan ingiriiska iyo xulafadiisu dagaalkii koowaad ee adduunka ayay ku mashquulsanaayeen muddadii hore markii laga soo jeestay waxay u soo jeesteen arrintii sayidka iyo dagaaladii waxay qorsheeyeen oo baarlamaanka ingiriiska looga hadlay sayidka sidii dawlad weyn in loola dagaalamo oo weerarka loogu qaado waxaa la yidhi waxay la sheegay inay yidhaahdeen markaa hadduu ina jebiyo inaynu dalka uga guuro oo xorriyaddiisa aan siino laakiin aan si ciidanka lugta iyo kan cirka iyo kan badda kullu aan kula dagaalanno dagaalkaas markii la qorshaynayey waa la qariyey oo in daraawiishu ogaato xogtaas waa laga qarshay diyaaradihii iyo wixii la soo qaadayey waxa lagu qariyo kofar looga dhigay batrool shidaal qodaaya oo markaas ka hor dhulka yimi baa lagu sheegay alaabtii iyo diyaaradihii waa la soo daadgureeyey oo meel dhuur cilaan la yidhaahdo oo u dhow caynabo baa lagu diyaarinayay muddo 1919 baa muddadaas laga shaqaynayay markii ugu dambeysay oo halka ciidankana dhinac baa laga diyaarinayay daraawiish iyo waxa loogu talagalay inay la dagaalamaan ciidan 3 madaxa oo madax burca lagu diyaariyey oo kirir uu soo marayo oo taleex beegayo madaxa kalena inuu dhuur cilaan baa la geeyey ceel afweyn buu marayaa jiidali iyo mirishi iyo meeshii sayidku joogay buu beegsanayaa ciidanka saddexaad inuu maraakiib soo raaco oo laasqoray ka soo dego oo baran iyo casha iyo jiidali dhankaa kaga yimaado ayaa loogu talagalay dagaalka ciidanka ka soko waxa loogu talagalay 8 diyaaradood iyo 3 markab inay ka qayb qaataaneen waxa la sameeyay goortii lagu soo diyaariyay alaabtii meel ciidankii meel walba meeshiisii waxa xusid mudan waxa la joojiyay safaradii u kala socon jiray daraawiish iyo cariga ingiriisku haysto dhanka kale waxa xusud mudan ooglaseed oo sayidka abtigii ahaa wuxuu yidhi aan joojinno safarada waqooyi ka imanaya warbay ina ka qaadayaan sayidkuna waa yeelo dhankiisa waa ka joojiyey wuxuu kaloo yidhi beerihii la qodi jiray aynu dadka ka baabi'ino nin beer qotay dagaal kuu geli maayo xoolahana ciriiri buu gelinayaa oo dhulkii ay daaqi jireen buu ku sii daynayaa iyadana sayidku waa joojiyey tan kale wuxuu yidhi goortii beerii la joojiyey caamir cagoolaa daraawiishtii xoola u qalay wuxuu yidhi caamir cagoolana madax buu noqday oo wuxuuba rabaa meesha inuu kaa qabsado caamir cagoolana waa la deebiyeyo deebinta waxaa la yidhahdaa bur aan aad u gubayn oo belalayaba dhinacyada laga mariyey
talooyinkaas in ingiriiska ay layn ku lahayd oo ingiriisku soo maleegay iyo oo waddo kale loo soo maray iyo inay sida ka noqotaba waxaa joogsaday dhaqdhaqaaqii u kala socday dhulkii ingiriisku xukumayay iyo daraawiish iyo safaradii sidaa waxaa lagu qariyey duulaanka weyn oo la soo qaadayo oo sayidka lagu soo qaadayo 23 Janawari 1920 ayaa sayidku isagoo mirishi jooga oo meel xaysima daraawiish badni la socoto ayaa diyaaradii u horeysay bamkii ku dhufatay waa la garan waayay waxay tahay nin turki ahaa oo la taliya oo ahaa sayidka baa yiri sayid in carsiyo meel ina gali diyaarad baa la yiraahdaa daraawiish waxay ku noqotay wax aan horay loo arag lana maqal daraawiish waxay ka dagaalamaysaa wax dhulka ka yimaada ee kuma tala galin wax irka ka yimaada sanqarteedii iyo waxaadii buurihii iyo caradii baa isla gariiray dadka qaarkiis waxay u qaateen in qiyaamadii ay tahay oo adduunkii ay u dhamaatay oo meel bay isku duuduubeen waxa ka darnaa xoolihii iyo geelii iyo arigii wixii carada joogay waligood mishiin guuxaya ma ay arag diyaaradna qararacdeeda iyo waliba primitive waa garanaysa jarbay wax iska qubeen wax meeshay doonaan bay aadeen waxa dhacay argagixii ugu xumaa oo daraawiish ku dhaca sayidka iyo rag la socday waxa la geliyay god xeela la yiraahdo oo kor ka daboolan oo aan la gali karin bay diyaaradaha maalintaas ka galeen haddii arintaasu dhacday oo daraawiish wareerkaasi ku dhacay waxa la yiri seeyeela sayidku wuxuu yiri aynu halkaan yaan buurahan layna ku hareeraynay ciidankii lugta ahaana inuu soo socdaa loo sheegay aynu ka baxno oo taleex iyo dhulkaynu niqeen iyo nugaal aynu aadno habeenka waxa ka baxsaday xarunta oo ingiriiska u galay Ismaaciil Mire iyo rag kale oo ilaa 10 gaaraya ingiriisku waraaquu qoray oo daadiyay diyaaraadku daadinayeen la leeyahay hadaa isa soo dhiibtaan nabadgelyaad helaysaanin oo waxba leedin yeeli maayo marka raggaasa isdhiibay waxaad ka garanaysaa moralka daraawiishta waxa la yiri daraawiishta haday sideedii tahay oo niyadeedii ay qabto boqol diyaaradood waxba kama qaadeen laakiin waqtigii iyo raagay oo 20 sano iyo ka badan la dagaalamayay dilkii xarunta ka socday oo dad badni ka hadeen inkastaan gaala la rabin haddana daraawiish waxa ku yimi niyad jab wixii la hayn waayay bini'aadamkuna muddo hawsha kuma jiri karo marka daraawiish iyadoo niyad jabsan baa dagaalkaas lagu soo qaaday haddii sayidkii wuxuu amar ku bixiyay wixii xoolo iyo geel iyo ceergaab iyo jiidali iyo jooga in la soo kaxayo isaga iyo ragu wataana waxay farday soo fuuleen oo taleex bay soo aadeen ciidankii ingiriiska ee lugta ahaa meel la yiraahdo ceel dheero buu ku soo gaaray xoolihii daraawiisheed oo la yiri siigaday kiciyeen cirkii baa daruuro noqday iyo waxa la wixii maal ahaa oo awrtu siday oo halkaas lagu waday gacanta lagu dhigay dadkii iyagoo cayra bay daraawiish ka soo carartay waxa la waxay xoolo waday oo sanaa ka keentay wixii soo firxad karay waxay yimaadeen taleex oo la isugu soo ururay 6 February diyaaradihii waxay duqeeyeen taleex 7 February iyadoo sayidkii joogo tii mid ka daran bay noqotay galabtii dambe ciidankii lugta ahaana wuxuu soo gaaray qowlo oo ninkii ingiriiska ahaa ee dagaalka madaxda ka ahaa Erger uu hogaaminayo waxay noqotay lug iyo faras iyo qof waliba wax adeegsan karo inuu ku cararo irkii iyo dhulkii baa maalinta gadoomay habeenka ka horeeya
baa waxa xarunta ka baxay niman daraawiisha oo ingiriiska qowlo ugu galay oo wiilkiisii uu ku jiro cabdiraxmaan sayid maxamed nimankaasaa sheegay sayidku inuu taleex ku jiro ingiriisku maba ogeyn sidii ceergaabu uga soo baxay meeluu aaday iyo meeluu ku sugan yahay galabtaasaa sidaas weerar loogu qaaday si sayidka loo qabto sayidku wuxuu dhex raacay dadkii taleex ka baxaayey oo cararayay oo diigaanyada ahaa gacanta ingiriiska ilaahay ma gelin raggii ingiriiska askartiisa ka mid ahaa oo loogu talagalay inuu qabto rag ka midihii waxay sheegeen sayidku markuu taleex ka baxaayey waanu u jeednayo waa qarinayo ma rabin inaannu gacanta ingiriiska iyo gaalada aanu gelinno runtood iyo beentood waxay tahay ilaahay baa yaqaan waxaa la sameeyey markii la soo gaaray 7 February oo meeshaa laga baxay sayidku ciidankii badnaa gees buu uga baxay isaga iyo Abshir Dhoore iyo Xaaji Cismaan nin la yiraahdo iyo baa gaar u baxay iyo 2 gabdhood oo walaalihiisa la socday ciidankii daraawiisheed markii la ogaaday inuu ka baxay taleex dadkii baa la dhex qaaday oo la yiri hal la qabto hal laga raadiyo ciidan gaar oo ilaa 100 oo meel u cararay bay moodeen waa daba galeen nin maxaa watay oo fitawaraari la oran jiray sayidka raggiisa ka mid ahaa way dileen waa ku hungoobeen hada yeeshee waxay ogaadeen group yar oo dhowr faras wata inuu sayidku ka mid yahay waana daba galeen nin Cabdi Dheere la yiraahdo oo qusuusida yiri 3 iyo Cabdi Warsame 13 sano ku jiray oo markaa ingiriiska garwadeen oo ahaa wuxuu yiri sayidka iyo fardihii waday hadaanu daba galay mar iyagoo faanadii farda ay qiiqii baxaayo aan isleenahay dhirtaas idinka xigta baa gaalka ingiriiska hayona watay wuxuu yiri joogsada waa joogsanay soo in celiya buu yiri soo celinaa ninkii hadaynu qaban lahayn ma noqda buu yiri waan xasuustay buu yiri arrin sayidku iiga sheekeeyay oo anagoo qusuusideeya waagi jidbaale uu yiri daraawiishay hadaa moodaysana aniga gacan gaalo in alla igelinayo aamin baan ka ahay gacan gaalo gali maayo baan xaqiiqsaday buu yiri in ilaahay u rumeeyay oo ay taas run ahayd halka goorta waxa soo dhacayaan oo nimanka la leenayo sayidku wuxuu galay buuraha Boocame ka sareeya si istaraatiijiyuna u socdayo Abshir Dhoore iyo isaga iyo dhowr nin oo muhiim ah oo meel la galayo ciidankan ciidan weynaha iyo dada kanu meel uu ku sugan yahay ma ogeyn markay warka laga helayo ingiriiska ayaga qabanaya maalinta Abshir Dhoore wuxuu watay baa la yiri faras la yiraahdo shalu maray oo dheereeya oo dadkii qaxaayay iyo waxa dhacaya iyo waxa uu ku dhexmarayay oo habda gees uga baxayay arintaas haday dhacday sayidkii wuxuu sameeyay wixii isu ururay wuxuu yiri halkaas aynu ka baxaynaa waxaynu maraynaa docmo iyo galaadi iyo wardheer baynu aadaynaa oo uu haystay Khaliif Cabdulla Xasan oo walaalkiisa hadii halkaan aynu ku jabnay rag wadada u sii fala baa la diray oo jidka u baneeya ninna waa la diro waxa la ceelka docmood oo biyo yarooda noo maaxi waa soo soconaaya halka haday tageen ingiriisku warqad buu qoray oo talyaaniga uu qoray wuxuu yiri ninkii xaqiinu soo aaday ciidan ku soo saara Ali Yuusuf wuxuu soo diray ciidan markii hore sayidka u hiiliyay oo diiday in lagu baxo oo waati keenadeed la qabto Eritrea la geeyo sayidku waa gidama soo daayay laakiin marka nin kasta oo ay rabin sayidka qabashadiisa haddana waa ku khasbanaadeen inay ciidan diraan sayidku galaadi markuu galay subaxii buu galay galabtiina waa ka baxay maalintii ku xigtay baa ciidankii galaadi yimi isagoo ka tagay sayidku oo wardheer iyo xagga aaday waa socotay daraawiishtii waxay tagtay dhulka dhoobo weyn la yiraahdo iyo Shiniile
aaggaasay daraawiishtii tagtay wixii ka haray iyo wixii urursamay iyo wixii halkaa uga maaragtay iyo wixii halkaa uga soo haray waxaa dhacay ingiriiskii warqad buu u daray Sir Archer wuxuu yidhi waa kaa adkaanay dadkaagiina waa laynay carruurahaagiina waa qabsannay adiguna tabar ma haysid iskamana kay celin kartid dowladda ingiriiska oo Jarmal iyo jabisay baan ka socdaa hubkayga iyo adigu isuma dhigantaaniin isdhiib waa ku nabadgelinaynaa 40 beri baad haysataa sayidku waa ka jawaabayo wuxuu yidhi waxaad yeelaysaa weerar baad igu soo qaaday dalkaygii baan joogaa carruurahaygii iyo xaasaskaygii baad laysay anna ammaan iyo waxaad ii hayso ma jirto haddaa isleedahay waa tabar yar yihiinna intaannu nool lahay waa kula dagaalamayna arrintaasi waxay u muuqatay inaan sayidku isdhiibayn weli uu isbidaayo inuu dagaalami karo wuxuu abaabulay ingiriiskii dadkii dhulka joogay ayuu yidhi qabiil hub u siiyey daraawiish xoolaheedii halkaasay joogaan shinniilay joogaan iskamana keena celin karaan nin walba uu xoolahaa doono dhowr guuto oo hub la soo siiyey oo rasaas la soo siiyey oo wax walba la soo siiyey baa daraawiish galay wixii xoolo u soo fakaday halkaasaa lagagala wareegay geela hagoogana la yidhaahdo baa maalintaa daraawiish laga qaaday kaasoo ahaa waxa hagoogana loogu bixiyey ninkii geelaa wax ka helayna farxad buu la hagoogtay kii aan waxba ka helinna ciil buu la hagoogtaa la yidhi daraawiish markay arrintaasi ku dhacday wixii ka haray waxay galeen qari jiqood bay galeen qari jiqood haddii la galay baa waxaa la yidhi see yaalla maxaynu samaynaa talo waxaa lagu goostay ma xabashidaynu isu dhiibnaa oo u gallaa ma waxaynu u gallaa talyaaniga oo isna warqad soo diray oo yidhi soo dhiiba ma talo kalaynu haynaa waxaa talo lagu goostay inaynaan isdhiibin laakiin webi Shabeelle aynu xaggiisa aadno wax ilaah ka yeelaba daraawiishtii waxay u kacday webi Shabeelle hadday webiga daantiisa isa soo taageen oo nimankii reer webi Shabeelle daantii kale yimaadeen waa la wada hadlay baaq baa lagu wada hadlay sayidkii iyo ragiisay waxay yiraahdeen ninkii san yaraa subac noqoya saweynta allow siyaadi saddex nin bay soo direen oo yiraahdeen bal nimanka soo arka hadday soo gudbeen saddexda nin sayidkay la kulmeen sayidku wuxuu yidhi nin gabadha saddex horta qori maadhiina buu ka simay mid walba qori maadhiinu siiyey nin wuxuu yidhi walaashaa baan doonay ninna wuxuu yidhi gabar baan ku siiyey ninna wuxuu yidhi gabar baan kaa doonay si ragga kanu u aaminaan waxay yidhaahdeen waxay ka oggolaadeen inuu sayidka la gudbiyo webi Shabeelle dhanka waqooyi bay ka joogeen dhanka kale loo gudbiyo oo koonfureed laba doonyood baa loo soo diray laba faras iyo 6 darwiish baa yaxaasku ka cunay markii la gudbinayay waxa loo gudbiyey ciidankii wixii haray iyo raggii daanta shishe ee buurta Iimay habeenkii halkaasaa la joogay subaxii baa sayidkii iyo abshir dhoore iyo waxay ka baxeen buurta Iimay dhakadeeday tageen waxa la go'aansaday in laba daarood laga dhiso hal jidna loo sameeyo halka la isku waardiyeeyo buurtu waa meel istiraatiiji ah
dhinacna webigay ka saaran tahay dhinaca kalena waa qar aan la soo fuuli karin marka hal wado inay iyagu u sameeyaan oo halkaa isku waardiyeeyaan ayay daraawiish talo ku gaareen halkaa markay joogeen oo daartii la dhisaayo oo jibaalkii u haray sayidku markii email la tegey wuxuu ka tiriyey gabaga aa maqasheen ee la yidhaahdo dardaaran oo ah gabayada ugu khatarsan sayidku waxyaabaha uu mariyey waxaa la yidhi cali dhuux nin la oran jiray baa tuduc u tiriyey gabaya oo uu ku leeyahay waa lagu digtaa ruux hadduu kuu daraan jiraye baldayay wadaadkii wakaasii dabayshaday wuxuu aad uga xumaaday gabagaas iyo waxa haysta cali dhuux niman sheeko ka sheegay waxay yidhahdeen cali dhuux baa waxaa la yidhi weligaa gabay aad tirisay ma ka qoomaysa ar afartii erayoo aan sayidka ku iri goortuu jabay ma ku jiraan buu yidhi sababtoo ah wuxuu gabaga uu tiriyey oo leeyahay saasaa dhici doonta buu aad u garowsaday sayidku gabay uu tiriyo waxaa la odhan karaa waa kii ugu dammeeyey oo uu iimi ka soo diray oo soomaali kula hadlaayey waxaadna moodaa inuu noloshiisa gabagabaynayey oo uu leeyahay annagu tagnay uu ku sheegayo gabagii oon xoogaa ka soo qaadanayno wuxuu yidhi sayidku min daroofle aqal daahya weyn dadab la heedaamay dermo iyo firaash lagu gam iyo daalam iyo googo anigoo waxaan doonayaba derajaday haysta iyo duni wixii nagaga lumay dararkii ceeldheero dab waxgubi diyaarada kufrigu nagu dulgowriirshay dumbuk sumuca dagalkan ka kacay dahab wixii yaallay dakhal jabay wixii daar burburay ama bakaar duugmay didibtii bannaanayd wixii dad iyo maal jiifay diriciyo waxay shiikh dileen ama duq waayeelah maxajaba daboolayd wixii gaaldukhuulayay dabatoobka iidoor wuxuu darayay caarkiisa loo durdura wixii deebla geel nala ka sii daayey dullihii shareeraa wixii daalna caga gooyey dirowgii qabsaday reerkayaga dalankacii gaaray dunkuleefle kaan soo agmaro duulanka horgeynta dalla'aan waxay nagu faleen darab najaaseedku doonyaha shamaalka ah haddii dakhalka loo laalo marunbaa dabaylaha sidaa soo dandaanshaane oo doofaaradii ku jiray daruxu caynshaay dabro cudura duumo iyo furuq waxaa dadkii laxaaqay annagu diidi mayno oo horaa daa'im noo qoraye ninkii dunida sii joogayaa haygu diirsado kolna haddaan cid laga daynahayn mowdka daqarkiisa ninkii haatan nagu diganayow dan iyo xeeshaada